بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، يا أخوة في الإسلام، يا أخوة في العقيدة، أقدم إليكم تحية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية dhammaan waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta meel kastay ku nool yihiin dunida, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax intii la dhalatay si dhab ah oo la dhalatay, ayagana salaan gaaran u dirayaa. waxaana lahayd dhibaatadii soo gaadhay Ilaahay inaga booyadhayo. raalli kama nihin qof muslima in la dhibo, laasiyama idinkana kuma sii jirtaan oo wadna la dhalateen. annagana ma jeclin dhib inaan gaadhsiino, idinna ma jeclidiin inaad dhibna gaadhsiisaan. waa sidaan filaya dhankiina. saana u jeclayn inuu ani dhib ii gaadho, ayaana u jeclayn qof kale oo walaal oo muslima in uu dhib gaadho. haddii aan iskiin baro, anigu waxaan ahay هو اسمحي الدين عبد القادر حسين عبد السمد. waxaan ku dhashay gobolka Ogaden, asiiba qaraj qood ayaan ku dhashay. madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar aad buu u garanayaa. waxaan isleeyahay waxaan uga soo wareegay kadib wadanada qurbaha. mudane waxaan rabaa 3 su'aalood inaan weydiiyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida gobolka Ogaden. waxaan leeyahay mudane Maxamuud Cabdi Cumar 3 su'aalood inaan ku weydiiyo. hadduu fideogaasi uu si xalaal ah hufan ku soo gaadhana inaad ii soo jawaabtid, maadaama kamid ahay muwaadiniinta dowlad deegaanka Soomaalida gobolka Ogaden. mana jecel inaan kugu xadgudbo. haatana waxaan ku noolahay dalka Kenya, caasimadda Nairobi. mudane Maxamuud Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweyne, ma waxaad leedahay ood ku doodaysaa qof kaste oo magaca absamaha ah waa Ethiopian? haddii aad sidaa aad ku doodaysid, dabcan waxaan is leeyahay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waa Ethiopian. laakiin hadduu Muqdisho ku dhashay uu ku barbaaray ku hanan qaaday, waa muwaadin Soomaaliyeed. inaad ku xadgudubtana sax ma ahayn. inaad isu daysay ahayd labada dowladood, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo shucuubta qaylada wada dhigayso. laakiin haddii aad ku doodaysay qof kastoo absamo aha waa Ethiopian, taasi waa budo gaar u tuman, waa laga wada hadlayaa. waadna ku saxsantaan islaahay marka ayada. waa inaad su-aasha ka soo jawaabtay mudane madaxweyne Maxamuud Cabdi Cumar. su-aasha labaad, miyaad ka tanaasushay odhaahdaadii ahayd gobolka dowlad deegaanka Soomaalida gobolka Ogaden dadka igula dagaalamaya ee Soomaalida ah ee ONLF madaxdeeda ah waa saraakiishii Soomaaliya, waana Soomaaliya ha daryeeleen. doodahaagii hore iyo odhahahaagii noocaasa miyaad hilmaantay mise waad ka tanaasushay? Admiraal Maxamed Cumar Cismaan waxaad tidhi waa Soomaali. Maxamed Maadey oo arrimaha dibadda u qaabilsan jamhadda waxaad tidhi waa Soomaali. Cabdikariimna dee xagguba ka sii yahay oo waxaba la qirayaa inuu dee xooggii dalka Soomaaliya uu ahaa. waayo adeegii ugu doodaysaay dee waa nin dowlad deegaanka Soomaalida gobolka Ogaden ah.
bal su-aashaana dib u jalleec oo garwaaqso doodaadii hore mataadii horaa saxnayd matanse eega aad ku doodaysid baa saxan dhankeen u dhaqaaqnaa haddii aan nahay shacab weynihii aad muraayad u ahayd labada adigu isqabadsiib waxaan ka gubanayaa maalin ciid ah in caruur Gaarisa ay ka oydo in ay ka ooyaan maxaan ku dhahayay Muqdisho gaalkacyo sidaas lamida ma jecli qabri dahar iyo goday iyo dhagax buur iyo fiiq iyo wardheer iyo liibaan iyo shinil iyo diri dhabi iyo herar in ayagana caruuri ku hooyaan ma jecli laakiin maydkay u dambeeyaa la yidhi dee kan la sii waday dee adoo madaxweyne ah oo aan isla 8 milyan oo Soomaaliyeed hogaaminaysa in aad caruurta ka dhawaajisay kugu raaci maayo saxna ma okay waa hagaag midda kale waxaan ku leeyahay Cabdi Maxamed Cumar su'aasheeda saddexaad ee ku weydiinaya waxay tahay dadka absamaha waxaa lagu qiyaasaa ilaa 7 milyan iyo 600 inay yihiin 6 milyani waxay ku nool yihiin deegaanka Soomaalida gobolka Ogaadeen bal hadee 800 kunna waxay ku nool yihiin baa la yiraahdaa Soomaaliya 800 kunna waxay ku nool yihiin NFD oo Kenya isu geyn dadkaasi markii la isu geeyo waa 7 milyan iyo 600 kun ma kula tahay in ay ku faraxsan yihiin habka aad oola dhaqanteen Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax intaa shucuurtaas oo dhan miyaadan dhaawacaynin caqligooda iyo maankooda iyo maskaxdooda ma inay ku faraxsan yihiin bay kula tahay in maalinba qof absamo u dhashay ama ogaadeenba iska dheh in sayladaha Soomaaliya iyo Itoobiya hadba dhan loo kala goosho oo loo kala dhoofiyo Soomaalidu miyayna odhan jirin qof jiidhiisa la hayaayay jirida kama qoslo dadka shucuubtooda iyo maskaxdooda miyaadan ilaalinayn oo miyaadan rabin bal dib u garwaaqso waranka aad riday iyo miisaanku leeyahay su'aasheeda saddexaadna halkaasay qotonsanaysa mudane Cabdi Maxamed Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka gobolka Ogaadeen waxaanu kaa codsanaynaa haddii su'aalahaasi si hufan oo xalaal kuu soo gaadhaan inaad garwaaqsatid dareenkanagu waxa uu yahay aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaana aad iyo aad shucuurtayda ay u gubanaysaa anigu in maalin kasta qof istirkayga ka soo jeeday inuu beec noqdo oo dee maxaan ku idhahdayay maalinba saylad laga baayo oo dhibaato xanuun badan bay igu tahay haddaan wax baranayay ma awoodi haddaan salaad tukanayay ma awoodi haddaan ganacsi iyo business ku jiray dee dareemkaygu xalaal ma noqonayo markaa bal arrintaas maareeyo bal dib u dhigo bal la dhanso dhibaatada ka dhalan karta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh